runtii anana waxa la Soomaalidu waxa tiraa hadii lagu sheelana isheeg hadii lagu sheegana isheel runtii ma aanan sheegan laakiin wax badan baan dalkan ka qabanay labadii sano ugu dambeysay wax la taaban karay oo aan u baahnayn oo maragma doonta ayaa runtii qabanay oo ku faraxsanay ana aad iyo aad aniga lafteedu aan يعني runtii ay geliso maxaa la yiraahdaa farxad badan dadkii colleagues kan ahayn sidii hawsha ay soo qabteen wasaarad aan isbedel aan ku dhicin ma jirto way ku wada dhacday kobcintii wasaaradaha ku dhacday siyaasado badan baa la baaskaray ilaa dhowr iyo toban يعني sharci oo loo baahnaa oo kamid yihiin kii xisbiyada oo kamid yihiin kii doorashooyinka gudiyada doorashooyinka oo kamid yihiin kii maxaa la yiraahdaa argagixisada intaasoo waxaasoo dhan oo la wada mariyey ayaa runtii jira oo taas waa xaggii jaanibkii shuruucda markaad soo qaadato jaanibka kale xagga tacliinta waxyaalaha ugu muhiimsan maxaa ka mid ah in labadii sane ugu dambeysay labadaba aanu qabanay in imtixaankii foomfooradu oo labadiiba sanadkii hore 2015 iyo sanadkii 2016 labadaba ay ka hirgaleen intaasoo dhowr iyo 20 kun oo arday ay sanadkan imika 2016 ay ka qayb qaateen 12 kun oo arday ay ka qayb qaateen sanadkanna waxaan wadnaa in sanadkii saddexaad insha Allah xukuumadda dambe ayadu qaban doonto laakiin la wado preparationskii iyo sidii loogu soo diyaar garoobi lahaa taas waa jaanibkii maxaa la yiraahdaa tacliinta waxa kale jira oo iyadana soo kordhay in marka laga eego dhinaca waxa ugu dambeysay dhowr iyo 30 sano 1985 baa ugu dambeysay qorshe qaran oo la sameeyo waa markii ugu horeysay ee qorshe qaran la sameeyay oo ay maanta aan ka hadlayno in la taaban karayo baahiyaha maxaa la yiraahdaa u baahan yihiin oo dawlad goboleedyadii ilaa wax dad kun iyo in ka badan laga talageliyay oo loogu tegay maxaa la yiraahdaa xarumahoogii loogu tegay oo sidii ku keeneen maxaa la yiraahdaa inay qayb uga qaataan qorshahaas qaran ee maanta jira oo la keeni oo bedeli doona wixii la oran jiray compact ama new deal-kii bedeli doona haddii aan leedmo laakiin qaabku uu bedelayaa waxa weeyaan wuxuu qeexayaa baahiyaha si u kala horeeyaan ama u kala mudan yihiin ayuu qeexi doonaa kolleyba pillarskii laakiin way jiri doonaan kii siyaasiga ahaa kii amniga ahaa kuwaasna weli way jiri doonaan laakiin wuxuu qeexi doonaa waxa baahiyaha ka jira taas waa runtii waa guul yani la taaban karayo arrinka kale iyadoo new deal-ka ama nidaamkan kale ku saabsan waxaa ka mid ah maaliyadda maareynta maaliyadda iyo qaabkii nidaam xisaabeedka loo sameeyey oo iyaduna isbedeshay oo runtii aad maanta arkayso in wixii soo gala xisaabaad ama xisaabta dowladda inay si cad oo qeexan loo arki karayo bixinteeda soo gelideeda waxeedoo dhan wixii ka soo baxa مثلا revenue dakhliga soo baxa in markaa la arki karayo oo qeexan tahay waxaan xooga saaray in يعني qaabka kharash bixinta sidii loo xakameyn lahaa loo ilaalin lahaa ayaan xoog badan saaray laakiin nasiib daro waxa dhacday in dakhligii loo baahnaa ay ahayd in oo runtii dhowr arrimood hadda jira waxa lanagu dhaliila la yiraahdaa mushaharooyinkii meedaan bixin inuu marka dib u eegto waxaad eegaysaa oo rabaa inaan markaa sharxo ko midda ugu horeysa berigii hore ama 2014 iyo 2015 waxa la bixin jiray 2014 13 waxa la bixin jiray lacag lagu kabo مثلا mushaharka shaqaalaha boqolkiiba boqol waxa kabi jiray caalam markii 2015 la soo gaaray ayaa boqolkiiba 40 markii la dhimay sidoo kale waxa istaagay lacagihii aan ka heli jiray dawladaha Turkiga iyo dawladaha Imaaraadka iyo kulli wixii lagu kaabayay ama lagu kabiyay ayaa wada maxaa la yiraahdaa istaagtay oo wada dhamaatay marka maxay oo la joojiyay marka maxay keentay
in dakhligii oon ku filayn mar keliya. That's why haddana nagu kaliftay June 2015 inaanu bilowno in dib eegis lagu sameeyo miisaaniyaddii, dib eegis dambe lagu sameeyey, la yareeyey, la isku dayay in xagga kale waxa aada loogu ammaanay Soomaaliya maxaa la yidhahdaa qaabka New Dealka oo loo arkay in ay si habsami u socdeen. Waxa kale lagu ammaanay iyadana sidoo kale public finance management oo sanad gudihii iyo sanad iyo badh gudahood lagu sameeyey waxa aad iyo aad u adag oo runtii keentay in World Bank iyo hay-adaha caalamiga ama ha noqoto IMF-ta ama ha noqoto oo la keenay marka waxaa la yidhaahdo chapter 4 oo markii ugu horeysay laga sameeyo Soomaaliya oo ugu dambeysay 1990 in haddana 2015kii for the first time la sameeyey, 2016kiina la sameeyey oo markaa lagu eegayay qaabka dhaqaalaha guud iyo sida ay yihiin iyo nidaamka siyaasi markaa nidaamka maaliyadeed ee ka jira dalka. Marka taasuna waxay keentay inay noo gogol xaadho sidii ay u iman lahayd in deyntii bixintii ama deyn cafiskii Soomaaliya ay u baahnayd si ay caalamka uga mid noqoto. Waxa kale iyadana muhiima oo aan runtii doonayna taabano waxaa ka mid ah 2000 ayaa la saxeexay federaaleynta dalka oo lagu soo saxeexay Djibouti. Kamay hirgelin federaaleynta, waxay ka hirgashay imika labadii sano iyo badhkii ama 3 sano ugu dambeysay 2013 ilaa 2016 ay 3 sano ay kaga hirgashay oo lagu helay in 6 ama waxa weeye waa Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, Galmudug iyo maxaa la yidhaahdaa Hirshabelle oo afar dowlad goboleed inay dhismaan. Taasna waxay ku tusaysaa yani qaybta weyn ay ka qaadatay dowladdan ay ka qaadatay sidii loo dhisi lahaa. Oo taas maxay keenaysaa in la daadajiyo maamulkii iyo awooddii siyaasadeed inay daadegto ay gaadho. Taasna waa waxyaalaha u soo kordhay. Xukuumaddan run ahaantii waxaa la odhan karaa waxa ugu muhiimsan ay qabatay waxay ahayd khilaaf siyaasiya inay yareyso. Yani berigii hore waxaa dhici jiray ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa isku dhici jiray ama madaxweynaha iyo maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka. Anagu intii 2 sannadood aan joognay waxaan ku dadaalay in khilaafkaas khilaaf u yaraado oo la helo degenaansho lagu siyaasadeed oo ay ku suurtoobi karto inay maxaa la yidhaahdaa la sameyn shaqooyinkii loo baahnaa hadday noqonayso ka xukuumadda iyo hadday noqonayso ka baarlamaanka iyo hadday noqonayso kii madaxweynaha intaba ay suurto galeen. Taas waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee ay ku suurto galeen in ay waxqabadkii kale ee xukuumaddu ma suurtoobeen haddii aanay taasu dhicin. Marka taasna waa waxyaalaha aan odhan karayna waa waxa ugu muhiimsan ee ka qabsoomay ee xukuumaddani ay qabatay 2 sano ugu dambeysay.